Assalaamu calaykum asxaabta halkan waa Saciid Madaaris Sports waxaad ku soo dhawaataan falaqeynta kulamada caawa ee playoff-ka ugu xiisaha badan Turkiya iyo Kosovo Italy iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta Bosnia ayaynu fiirinayna saaxiib ay iloweyna subscribe saarto like dhehdo fiidiyoga waad mahadsan tahay waxaana si gaar ah idinkaga codsanayaa inaad 100 subscribe na gaarsiisaan Kosovo ayaa talaadada kusoo dhaweyd doonta caawa Turkiga garoonkooda Stadio Fadil Fakori kulanka madambeysa oo playoff UEFA iyadoo boos ka mid ah koobka adduunka 2026 uu halis ku jiro kooxda martida loo yahay ayaa 4-3 ku garaacday Slovakia semifinalkii halka Turkiga ay ka gudubtay Romania kulankooda Kosovo waxay leeyahay ololo isreeb oo aad u fiican iyadoo si lama filaan ah u soo dhameystay kaalinta labaad ee Group B kana sareysa Sweden iyo sidoo kale Slovenia kooxda uu hogaaminayo France Ford waxay gaareen 3 gool hal barbaro iyo sidoo kale hal guuldaro oo kaliya taasoo ahayd 4-4 oo ay kala kulmeen Switzerland kulankoodii furitaanka groupka guuldaradaas ayaa kaliya ka dhigtay inay 3 dhibcood ka dambeeyaan Sweden oo kaalinta koowaad gashay taasoo ku qasbanaatay inay ku soo baxaan playoff-ka UEFA markii ay la ciyaareen Slovenia semifinalkii Kosovo waxay heleen guul xiiso leh 4-3 taasoo ka dhigan hal gool ay u jirto inay u soo baxaan koobkoodii adduunka ee ugu horeysay abid Kosovo waxay finalka playoff-ka UEFA la ciyaari doontaa Turkiga kadib markii kooxda uu hogaaminayo Vincenzo Montella oo ay guul dirqi oo 1-0 uga adkaatay Romania iyadoo goolka guusha uu dhaliyay Ferdi Kadıoğlu Turkiga sidoo kale waxay ku guuldaro hal mar kaliya kala kulantay groupkooda isreebka waxayna ahayd markii ay xasuuqay 6-0 ay Spain kaga badisay kulankoodii labaad ee Group E inta kalena 4 gool hal barbaro oo ay heleen 5 kulan oo ay kala yeesheen inay si raaxo leh ugu dambeeyna kaalinta labaadna iyagoo 10 dhibcood ka sareeya Georgia oo kaalinta saddexaad gashay Turkiga waxay hadda doonayaan inay soo afjaraan maqnaanshaha 5 tartan oo ay kaga maqnaayeen koobka adduunka iyadoo markii ugu dambeysay ay ka soo muuqdeen tan iyo 2002 markaasoo ay kaga adkaadeen South Korea ciyaar kaalinta saddexaad ahayd Turkiga waxay kalsooni weyn ka heli doonaan rikoorkoodii ay ka hayeen Kosovo maadaama ay ku guuleysteen 3 kulan ee ugu dambeysay ay ku jirtay gool 4 gool iyo gool ay ka gaareen kulankoodii ugu dambeeyay June 2017 kooxda guuleysata finalka talaadada waxay ku biiri doonaan United States Australia sidoo kale Paraguay Group D ee koobka adduunka 2026 Kosovo waxay gaartay guul cajiib ah oo 4-3 ay ka gaareen Slovakia semifinalka waxaana suuragal ah in tababare Fooda uu isla safkii hore ku soo bilaabo dhanka kalena Turkiga kabtanka Hakan Nulu waxaa laga yaabaa inuu dhaawac yar qabo kadib markii laga saaray kulankii Romania balse weli waxaa la filayaa inuu ciyaaro talaadada saaxiibayaal haddaan fiirino kulanka u dhexeeya Italia sidoo kale Bosnia kooxda kubadda cagta Italia ayaa caawa waxay la ciyaari doontaa xulka qaranka ee lagu magacaabo iyadoo labadaba doonayaan inay soo afjaraan 12 sano oo guul la'aan ah Italy iyo VS Bosnia ayaa isku arki doona finalka playoff-ka ee go'aaminaya cidda gaari doonta koobka adduunka xagaagan kulanka oo ka dhici doona Stadio Ballino Bologna ee Zingia labadaba dhinac midkood ma aysan gaarin koobka adduunka tan iyo 2014 sidaas darteed waxaa la filayaa habeen xiiso iyo cadaadis badan leh Italy muddo dheer waxay ku hareereysneen xasuusta fashiladaha koobka adduunka iyadoo cadaadiska ku saabsan inay mar kan soo baxaan oo aad u sareeyo inkastoo ay yihiin 4 jeer guuleystayaal koob adduun ah haddana inkastoo ay guuleysteen Euro 2021 waa markii ugu dambeysay ay ka ciyaareen koobka adduunka 7 sano ka hor tani markii saddexaad oo xiriir ah waxay Italy ku dhameysteen isreebka iyagoo galay playoff-ka kadib guuldarooyin xanuun badan oo ka dhacay Sweden iyo sidoo kale North Macedonia waxayna ugu dambeyn ka badbaadeen semifinalkii Khamiistii kadib qaybtii hore oo adag oo Bergamo ka dhacday waxayna 2-0 ku garaaceen North Ireland iyagoo goolal ka heleen qaybta labaad Sandro Tonali sidoo kale Moose Kean inkastoo ay guuleysteen dhammaan kulamadoodii kale ee Group E
haddana laba guuldaro oo culus oo ka dhan ah Norway ayaa muujisay inay weli difaac ahaan nugul yihiin. Si kastaba ha ahaatee, tababare Gennaro Gattuso ayaa kooxda ka dhigay mid goolal dhalisa, iyadoo celcelis ahaan dhaliyeen in ka badan 2 gool ciyaartiiba tan iyo markii uu qabtay bishii Sebtembar. Gattuso oo hore u ahaa guuleyste koob adduun ah, hadda wuxuu doonayaa inuu ku hogaamiyo guul playoff-ka Italia, iyadoo guuldaro lama filaan noqon karto mid aad u culus. Bosnia oo kulankoodii toddobaadkii hore ay la ciyaareen Italy waxay haysteen 1 guul oo kaliya, 2-1 ku badiyeen kulan saaxiibtinimo ah oo 1996 ka dhacay Sarajevo. Labada dhinac hadda waxay doonayaan inay mar kale gaaraan koobka adduunka tan iyo 2014. Waxay u baahan yihiin 1 guul oo kaliya kadib markii Edin Dzeko uu ka badbaaday semifinalkii playoff-ka. Bosnia waxay rigooreyaal kaga adkaatay Wales kulan adag oo ka dhacay Cardiff. Haddii ay guuleystaan, waxay heli doonaan boosaska ugu dambeeya ee Group B ee koobka adduunka, iyagoo ku biiraya Canada, Qatar iyo sidoo kale Switzerland. Bosnia waxay sheegtay inay si toos ah uga soo baxaan kadib markii ay barbaro la galeen Austria, taasoo dhaawac weyn gashay. Cimilada qabow iyo sidoo kale garoon taageerayaal buuxda ayaa faa'iido noqon karta Bosnia, inkastoo ay 58 boos ka hooseeyaan Italy qiimeynta FIFA. Gattuso ayaa la filayaa inuu ku sii wado isla safkii uu kusoo bilaabay North Ireland, inkasta oo Matteo Rudiger laga yaabo in laga bedelo weeraryahanka da'da yar ee Inter Milan oo u ciyaara Bayo Esposito. Esposito ayaa 3 gool dhaliyay 5 kulan oo ugu dambeysay isreebka, wuxuuna sidoo kale dhaliyay 2 gool ee ugu dambeysay ee kooxiisa Inter Milan.